garoobadaadu qaaday bal heesta garoobada hataad bal faahfaahinayga siisid heesta garoobada siday kugu dhalatay ma abwaanka madaa ka codsaday bal heesta garoobada ma qof gabadh garooba oo aad taqaanid bay qisada bal heesta garoobada faahfaahinayga sii horta heesta garoobada arinteed ma sahlan gowdhe qisada baa ku keentay oo heestan garoobada ka dambaysa rabaa inaad caawi iga sheekaysid horta heesta garoobada habeenka aroos ka xasuusataa intaasoo qof aarta isoo weydiiyeen abaayo ma u sheegin wayna cusub tahay weli video ma loo sameynin intaasoo qof isoo weydiiyeen qaar youtube-yada ka raadinaya dhahay heestan hore loo qaado oo maleynayna qofka qaadaa ka seenin heestan hore ma loo qaadin waa hees cusub abwaan allah u naxariisto isii hadda dhow dhintay oo jigjigi joogay eriyada iyo lacankata iyadoo waxaa jirta oo taa wiil oo qaadayo maxamed absuug maa la dhahaa absuuge nuno ala dhahaa oo dhawaan dhintay la naxariisto ayaa eriyada ku siiyay eriyada isiiyey muusikada xadhan marka hataa waxaa jirta iyadoo wiil uu qaadayo jirto oo laakiin si kale u qaadayo jirto dad badana isoo weydiiyeen qisadaasna waxay ku dhacday gabru abtu ah isaga abwaanka gabru abtu ay ku dhacday alaf anuu iisoo dhiibay cabbaaraan hayay laakiin mar dhow aan damcay inaan soo qaado marka heesta weli video looma sameyn laakiin video loo sameynin waa hagaag marka heesta qisada ma kaaga sheekeeyay abwaanka ay ku imaaday qisada iga sheekay gabru abtu ay ku dhacday qisada laakiin qisada ku muusi faahfaahino uu ii sheegay wax dhan qisada hada wax kamid ah la wadaagtay bar qisada waxaa waaye gabadha abtii uu ahay wiilaa qabay 5 caruur u haysay 5 caruur isagoo u haysa oo naa kale la gursaday naa kale markuu la gursaday gabadhu way masirtay dumar la gursaday masira Soomaaliya wiilka markuu waxay ku raacday hanti la'aan curyaana uu ahay wiil curyaana uu ahay hanti la'aan way ku raacday jacayl ku guursatay waa jacayl indhana mala dhagana mala Soomaaliya alaf markay saas darteed isku guursadeen gabadhi maxay dhaatay tii kale waxay dhahday tanaad qabtaa tan marka waxay tiraan ifur naagta hore u guursatay ifur ay dhahday adoo curyaana ku guursaday 5 caruuran ku haya naagtan fur misani ilmahaaga iyo ani mis naagtan markaas wuxuu dhahay naagtan u go'aya tii dambe oo iyadii 5 caruur u dhashay oo waliba noloshaas adag la soo bartay uu dhahay waaba ka tagay ma bareebo wixii cusub caalanka jecel Soomaa naagta cusbeedo ilmihiisa caruurtiisa ka raacay bis gabadha sidoo ku furay gabadha markuu sidoo ku furay abtigeeda u sheegtay arinta abtigeeda abwaan oo ay la u naxariisto bis gabadhi marka nin kala guursado hantiile ninkii markuu ka tagay oo curyaanka ahaa waliba 5 caruur u haysay 5 caruurba iyo adiga anaa kugu jecel oo dhahay nolol raaxo leh oo galiya hadda cidaas dibadda jooga saan jeclahay wuxuu dhahay wax walba anaa kugu jecel mid kala daf oo dhahay gabadhu fur wuxuu dhahay ku rabaa markii gabadhii wuxuu dhahay ninkan iska fur ilmahayga adanaa ku rabo tii kalena wuu furay asaga laba goor oo tan wuu furay tii kalena waa furay asaga kaliya gooni ku soo dhacay ciladu kaliya taagan Soomaaliya gabadhi markii nin hatii la guursato iyada ilmada nolol kala galeen ninka la nooshahay buu dhahay iska soo fur ninkii ninka iska furo dhan ilmahayga marda maqalad ma ka galaysaan waaye sidii heesto ku soo baxday midka goobi hablaha gabarnimada dhaabsho garoobka ma litay garaalaawo ma furay waa hagaaga heestaas dabcan oo qisadaas xanuunka badan gabadhaasna 5 cunug haysato maxaa ka gal aroos inta u dhigay gabar hataa waxa loo dhigan u dhigay markaas uu guursaday qisada markaas ay ku umaaday heestaas ku soo baxday waa hagaag dabcan heestaas waa hees inta badan dadka ay jecleysteen ka hor dhici mayno dadka dadweynaha waxay leeyihiin bal heesta qisadaas laga sameeyay maana loo soo daayo haddana waxa uu kala baxayaa heesta garoobada iyo hibo
goystu waa calaf gayaankeed sugayseen gacali xigaaliyo garyaqaankii dhalday gadaashiisa joogta